السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo qofku noloshiisa soo dabarta ah sida habka qofku noloshiisa uu dabaran karo. Waxaan rabaa inaan ka hadlo. Horta waxa weeye Soomaalidii hore waxay ahaayeen dad aad u firfircoon bay ahaayeen oo reer miyiga markaan deganeyn. Dadku waxay ahaayeen dad hawlkar ah. Hawlkar baa la yiraahdaa. dad fan iyo kibir iyo waxa yaqaanana maysan ahayn. Waxay ahaayeen dad shaqaysta xoolahooda dhaqda. waxa weeyaan dadkaasi ari iyo geel iyo lo iyo waxay lahaayeenba. waxa weeye xoolaha waa la raacaya. waxaa la geynayaa meeshii naqlaa la geynayaa maanta dhan baa la soo joogayaa salaadii baa guriga laga baxaya xataa carruurta yararka ahayd maanta dhan waxaa laga yaabaa salaadii inay xooga caana cabaan laga baxo guriga maanta dhan xoolahaas maaragtay lasoo ilaalinayo oo lala soo joogayo. kuwa ilmaha ah baa waxay yimaadaan duhurkii carruur yaryar baa duhurkii yimaada guriga oo xooga caana la siiya laakiin dadka waaweyni ama wiilasha maaragtay dhowr iyo 10 jirada 15 jirada meelahaas iyo gabdhaha intaa eedayda gaaraanba maanta dhan xoolahaas la jiray ayagoo gaajaysan. fiidkii way xoolihii soo xaraynayaan maqribkii way soo xaraynayaan xoolihii markaasaa cunadii labaad ugu horreysa waxay cunaan ama caanay cabayaan ama waxay haysataan bay karsanayaan. marka horta dadkii hore haddana waxaa taa u dheer waa inay hadba guuraan oo meesha hadma ay u arkaan naqle inay u guuraan. waxaa laga yaabaa meesha u guurayaan inay tahay 50 kilomitir meel ah inay u guuraan oo roob ka da'a halkaasaa roob ka da'ay waa guurayna habeenbarkii baa xoolihii iyo arigii lasoo rarayaa maxaa ilaa halkaa la aadaya oo loo lugaynaya wax la sii socdo la tegaya meeshii naqab ka da'ay. Soomaalidii horeeto waxay kasoo guuri jirtay noordka waqooyiga Soomaaliya waxay u guuri jireen ilaa koonfurta usoo guuri jireen hadday rabaan waxay u guuri jireen ilaa galbeedka Soomaaliya iyo Itoobiya dhulkan maaragtay Soomaalidu leedahay hadda Itoobiya ka tirsan baa loo guuri jiray. haddii la rabana koonfurta loo guuri jiray meesha roob ka da'ay baa loo hayaami jiray oo loo guuri jiray imisa la soconaya wax badan. marka meel cidlaa bay deganaayeen ruwaal libaaxa leh ma fahamtay waxaasay maaragtay iyagu saasa noloshooda ahayd saasay ku taa barwaaqay ku noolaayeen. waagii hore dhulku dhir buu lahaa dadku dhirta ma jari jirin dhirtooda ma jari jirin marka dhulkeena waxaa lahaa maaragtay wax kastaa ka bixi jiray dhir baa ka bixi jiray dhir kastaa ka bixi jiray dhir badan loo lahaayo dhirtaa badan cunay kuu siinaysaa xoolihii cunay kuu helaya adiga cunaa ka helaysa. marka dhul maasha Allah buu ahaa. dadku marka waxay ahaayeen dad hawlkar ah oo iska celin kara qofta dumarka iyo ka ragga iyo ilmaha waxa dhan waxay ahaayeen dad hawlkar ah oo bahalada iska celin jiray bahaladaas iska celin jiray. hadda aniga ayeeyday Allah u naxariistay iyadoo maaragtay waliba umul ah baa maaragtay meel muxuu ahaay tidito aqalka iyo u dhaxaysa xerada ariga u dhaxaysa waxa ku xiraayeen shabeel baa soo booday marka waxa shabeel maahan waxa weeye bahalkan shabeelka inagu waxaan naraanaa shabeelkan waxa weeye geed yar oo harabcad weeye harabcad baa la yiraahdaa. shabeelku hindi iyo meelahaas uu joogay kan inaga wadankeena jooga harabcad baa la yiraahdaa. waa bahalkan ku sawiran calanka Soomaaliya wax calaamada tan maaragtay laba Soomaalida ku caanka ah labada bahalkan shabeel lama yiraahdo harabcadka ah oo geesaha kaga sawiran weeyaan calaamada Soomaalidu leedahay. marka bahalkaas wuxuu sameeyay intuu soo booday wuxuu xoorihii oo ariga qaado ayeeyday iyada umul guriga joogtay kaligeed intay soo booday bay iska celis oo tiri waxay isku dayday inay ka cashato xoolaha iyo ariga ka cashato waxay ku dhufatay isagii wax ku dhufatay oo iska celis cunug yan guriga u jooga
markaasuu gacanta gashada afkeeda gacanta gashada yacni waxaa keenaya qofku inuuba u barbar dhigo bahalka waxaa keenaya xoolihiis ka ceshado waxa weeyaan waa geesinimo iyo howlkarnimo qayb kamida weeye iyo dhurwaaga iyo waa la iska celiyaa dadku waa iska celiyaan kama baqa hataa libaaxa iska celiyaan iska celin jiren waxaasoo dhan waa iska celin jiren dad howlkaray ahaayeen aan baqinin marka xaalku markuu sidaa yahay dadku hawl badan adag bay hayeen marbay abaar ahaan jidhay oo la dhaamin jiray biyaha geela waxaa loo aroorin jiray meel fog waxaa loo dhexi jiray maalmaa loo dhexi jiray meesha biyaha laga keenayo marar badan libaaxyaa lala kulmi jiray oo libaax baa maaragtay dadku ay maaragtay soo weerari jiray hawsha waa iska badnay saasay ku tahay dadku way noolaayeen oo barwaaqay ku jireen raaxay ku jireen kelmadda barwaaqa waxayba ka timid waa marka rubdo oo dhulku maaragtay caleen yahay oo udgoon yahay xooluhu ay dhargaan caanaha caano iyo subag iyo adduunyo iyo hirb laga dhargo marka dadka saasay ku noolaayeen welina sidii bay ku jiraan horta dadka reer miyiga waa dadka noogu fiican weeye noogu actifsan waxaa dhibaatada ka jira waa dadkan magaalada galay waxay noqdeen qof baa shaqaynaya qofkaa shaqeeyaa lagu ururaya waxaad arkaysaa niman iyo naaga iska gabo iska jegjoogo guro xabad aan qabanayn aan isku dayaynin wadamada annaga aan joogno oo westernka laga heli maayo waxaa qof weyn oo iska fadhiya soomaali baa ay u badanta haddii laga helo waa soomaali iyo dadkaa kale laakiin dadkan wadanka u dhashay ilmaha markuu yaryaha lagu tababaraya inuu wax samaysto shaqaysto dadaalo oo iskoolkaasu kasoo baxaya xirfadu samaysanaya hadhow xirfadaas ku shaqaysanaya qof cadaan ahoo shaqo la-aana waxa weeyaan waa lala yaabaya waa la helayaa laakiin waa lala yaaba u shaqaysan waayaa laleeyahy marka horta inagu dad isdhiba ma nihin dad isdhiba waa jiraan oo shaqaysta oo aad u shaqeeyana waa leena aad u shaqeeya dadka laakiin waxaa ugu badan aan jeclayn dadku inay isdhibaan waxay jecel yihiin inay iska seexdaan maalinka nuskii iska seexdaan waa arki jir dhulka markaan joogay dadku inay iska seexdaan qof baa lala degan yahay qof magaalo jooga baa lala degan yahay dadkaas ama nin naag isqaba ama gabar keligooda iyadoo wuxuun ka shaqaysa ama biibita ka shaqaysata ama dukaan leh ama baa lagu soo ururaya qofkan qaangaarka isku daymayo inuu shaqaysto isku dayo isagu yiraahdo war anigu maan wax soo saarto waxaan qof u ag fadhiyaya qofku wax yar bay caawin karaan laakiin anigu haddii ama qofkaanba u imid rabo magaalo inaan soo galo oo ka shaqaysto de waa inaan shaqaysta ana meesha aana fadhiinin ama waxii aan gadi karo aan gada wixii meelshaan shaqo ka heli karo aan shaqo raadiya meelo aan u shaqayn karo dad aan u shaqayn karo shaqadu waa laba nooc midna qofku dad buu u shaqeeyaa midna iskiis buu u shaqeeyaa marka waxaa la rabaa dadkii inay maaragtay dadkeenii waxaa dhibaatada wadankeena iyo faqriga keenaya soomaalidu waxa weeyaan ma jecla inay shaqaystaan yani in shaqaysa waa jidhaa laakiin waxaan shaqayn boqolkiiba maxaa la dhahaya midhaa konton baan shaqaynin nus ma shaqeeyaan marka taasina waa dhib badan weeyaan qof waxa weeyaan gaaladaani ma ogola qof iska fadhiya wallaahi san u ogolin qofki inuu fadhiyo kii fadhiya dadkiina u qaba Soomaaliya jooga wadamadan gaalada hadii la taga lacag bay ku siinayaan wallahi sina shilin ku siinayeen shilin inaysa ku siinayeen waxay ku leeyahay bax soo shaqayso shaqo raadso war hadda shaqo waa raadi waa kun shaqo lagu leeyahay soo raadi si lacag hadii xoogaa rabti inaad lagu siiyo ku noolaatid waa intaasoo shaqo inaad soo raadisid waa inaad xirfad samaysataa baa lagu dhahayaa or xirfad samaysa aad ku shaqaysatid waxbaro orod iskool gal oo xirfad soo samaysa xirfadda orod shaqo ku raadi marka qof una ma aragtay looma ogola inuu iska fadhiyo marka waxaynu u baahanahay Soomaaliyeedana inaan meesha ka kacno inaan shaqaysano meel aan joogno wadamadan Yurubka oo chance fiican haysana xataa waxa weeyaan dad badan ba iska hurda oo waxba qabanin iska hurda
marka fadhiga meesha laga kaco waxa weeye diinteenaaba inaa leh waa inaan shaqaysanaa waa inaan xooggan cuna xooggii indhaha iyo afa iyo lixda lixaad ilaahay wuxuu kuu siiyey inaad ku shaqaysatid intaasaan kusoo koobayaa like ta shaara kambaleelkana taabta si videoga idinkugu soo dhaco asalaamu calaykum waraxmatullahi